كرتون هو في عمانة Suga. Stefan, welche nicht auf?
hadda waa taqaani sheekh magaalada waay Sheekh Maxamed Cabdulaziz ayaa yira sheekhaas wuxuu ka yimid Uganda wadaadkan mobile gacanta ku haysto waxaa la yidhahdaa Sheekh Axmed Dheere wuxuu ka yimid South Africa arrimada South Africa waay wadaadkan waxaa la yidhahdaa Sheekh Maxamed Aadan ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وبعد إلهي سبحانه وتعالى ما هذا السجناتي نصر تجليه إن هل كان سوء إيمانه إن هل كان إيمانه أنك حق يكرتي أود إيمان اللهين إذن كان سيده كله لا حول ولا قوة إلا بالله إلهي سبحانه وتعالى بنصر تجليه إن هل كان إيمانه ما هنو إيماني أخوة إسلامية ولا لماذا إسلام كانوا إيماني وحنو إيماني صومالي لماذا نو إيماني وحنو إيماني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إسو كالمية على البر سمفلك سيدانو كلوه سمفلك يا خيرك إيو والتقوى الله كبقى ودينتي يا دعوذي يا مساجدي يا تفسيركي ويه إلهي سبحانه وتعالى waxa uu nagu adoonsaday haddaan muuminiin nahay inaan walaalo noqono iscaawino aad baan uga xunnahay dhibka idinku dhacay iyo duruufta idinku dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa idin baryaynaa idinkana inaa ilaahay baridaan oo tuugtaan way subxaanahu wa tacaala waxaa weeyaan jaaliyadda South Africa ama jaaliyadda Koonfur Afrika ee Soomaalida mucaawin ay soo dhiibeen weeye midda aan wadno إلا يشنبقل أو قويس أي أقطر جلين إن سيان من $100 إن شاء الله تعالى سيدا مشى أتفقدان به وعاون إلهي سبحانه وتعالى ونوافجيه دتك ولالين أنت سيأودان أنت أودين أي إذن لصوت تبرعين والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه بوليه النبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحو هذا مد أدونك سأكالمينايا أنت walaalkii sakaleete uu kaalmeynayo maxaa yeelay annaga waxaan rabnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu noo kaalmeeyaan rabnaa ilaahay inuu na jeclaadaan rabnaa annagay dan noogu jirtaa in aan soo qaadno khidmadii inaan soo qaadno macaawinadii annaga ayaa noo tahay ajar iyo xasanaad annaga sharaf noogu jirtaa kaliya ma ahan inaad idinka idin caawinayna kaliya ma ahan idinka caawintiina walaalnimada iyo khayrka iyo dadnimada iyo waxa naga dhaxeeya waxaa ku lifaaqan annaga ayay noo tahay macno samafalka iyo biriga iyo alla ka baqa waxa la soo kaalmaysto waxa ugu muhiimsan weeye waxa loo baahan yahay in aad u duceysaan walaalihiin duruufta ku sugan yihiin waa ogtihiin Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika jooga meelay ka joogaanba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ha ugu daro jaaliyadaas weyn ee South Africa Soomaalida Ilaahay cadowga ha ka qabto dibkay culayska Ilaahay ha ka dulqaado subxaanahu wa ta'ala culimada kale ayaan ku soo dhaweynayaa إن شاء الله تعالى إن كلمة يرهدان شيخ أحمد داري شيخ محمد موسى إيوه كسر دواده شيخ أحمد داري كسر دواو شيخ محمد هذه كل قالوا وانا ولا قوانا أيوة على الساحة عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعد بسم الله ما أنت مالين ثلاثة وشان الله تجي بيش نوفمبر 2019 waxaan joognaa magaaladii Beledweyne waxaan ku guda jirnaa insha Allah ta'ala hawshii caawintii ay soo dhiibeen walaalaha reer South Africa magaalada Beledweyne ayaan joognaa dadka u jeedaan waa dadkii fatahaadaha ay waxyeeleeyeen ay soo barakiciyeen walaalaha South Africa oo Sheikh Axmed Dheere oo hor socod u yahay ayaan soo gaaray إن شاء الله تعالى dadkan halkan jooga
meesha hadda aan taagannahay waa magaalada galbeedkeeda xaafadda Howlwadaag dadka meesha fadhiyana waxay isugu jiraan afarta xaafad ee magaalada ay ka kooban tahay iyo tuulooyinka ku hareeraysan ayaa laga keenay taqriiban waa 500 dad gaaraya insha Allah taala qof waliba wuxuu heli doona iyo xaaladda sida tahay iyo meesha ay ka timid faahfaahinteeda ustaad Sheekh Axmed Dheeran insha Allah ku soo wareejinayna isaga noo dhameystiray oo jazakumullahu khayr bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa Axmed Maxamuud Cabdi Axmed Dheere waxaan ka imid dalka Koonfur Afrika waxaan u imid fatahaada iyo dhibaatadii ka dhacday gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne waxay soo wakiishay jaaliyadda Koonfur Afrika ee Soomaaliyeed jaaliyadaasi alxamdulillah wax badan bay soo ururisay oo kala duwan hadda ka horna waxyaabo fara badan bay ay gobolka soo gaarsiisay tan oo musiibooyinkii dhacayay sanadkan mid kamid ah lacag ahaan waxaan soo ururinay 59,800 iyo shacab haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ogolaado dadka ayaa loo qaybin doonaa sida adinka baad u fadhidaan hadda waxayna shardi ka soo dhigeen in lacag lagu qaybiyo lacag baana ku qaybinaynaa insha Allah ta'ala wadanka Koonfur Afrika oo dhan baan laga soo ururiyay ha ahaato magaalada Johannesburg ha ahaato Pretoria Port Elizabeth dadka iyaga waxay idinka codsanayaan oo idinka doonahayaan duco idinka rabaan marka ugu horeysa marka labaad fariinta ay soo fareen waxa weeye inaad sunna xariisataan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ina ka baqdaan adinku aad sunna xariisataan kiina daciifka midka qawiga uu taageero kana waxaysanan ka waxaysta uu taageero kii wax hore u qaatay kaan waxba hore u qaadan uu taageero meeshan wax badan baa soo galay dad badanna waa joogan dad badan oo wax qaadanin baa laga yaabaa inay wali jiraan waxaan aad ugu faraxsanahay ka Koonfur Afrika ahaan dadkan hadda meesha fadhiya iyo inta kale hadhowtii aan u tagi doono inay yihiin dadkii laga keenay afarta xaafadood ayaa dadkan laga kala keenay iyo tuulooyinka ku dhadhow oo runtii meelaha tuulooyinka qaarkood aan la gali karin arintaas waa arin aad iyo aad maaragtay anaga maqsuud nagu ah oo dadkii deeqdan soo bixiyay ay maaragtay u noqonayso maxaa la yiraahdaa qalbi qabows ay u noqonayso waan jeclahay in aan u mahad celiyo walaalaha shaqadan qabanaya ee runtii har iyo habeen u taagan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii u shaqeynaya ee dadkooda u shaqeynaya aad baan maaragtay uga mahad celinaynaa wajazaakumullahu khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa horeyn waxaan rabaa inaan gaarsiiyo ummadii Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan jaaliyadda South Africa deeqdii aad soo dirteen ay soo qaadeen wakiilkii ahaa Sheekh Axmed Dheere waana soo gaartay magaalada Beledweyne ayaan ku sugannahay maantana waxaan rabnaa inaan u qaybino dadka horteena fadhiya aad u jeedaan oo isugu jira dadkii xaafadaha afarta xaafadood muxuu ahay degmooyinka magaalada ku dhow aan ka gaari karno aan muxuu ahay u qaybinay waana maanta bisha 25 bisha 12aad sanadka 2019 waxaan dadku u sameynay si loo garto kaararkaas oo qof walba kaarkaas uu wataa oo loogadiini ku qoran tahay iyo calaamadiini qof walba kaas ayuu ku soo galay marka waxaan u mahad celinayaa dhammaan guud ahaan dadkii meesha joogay wixii aad soo dhiibteen oo soo gaareen qof walba oo qoysaskan kamid ah oo kaarkan watana waxaa la siin doonaa lacag $100 insha Allah ilaahay waxa uga rajaynayaa dadkii soo dhiibay inuu xoolahooda iyo maalkooda iyo caruurtooda iyo naftooda iyo halkooda Ilaahay u barakeeyo ilaahay inuu ku xifdiyo ilaahay inuu ajir ka siiyo cadaabkan uga badbaadiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu jannada isku geeyo dhibaatada badan aan maqalna ilaahay inuu kaga badbaadiyo dadka walaalihiina ahna way kaga mahad celinayaan adaan mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa inaan sheego jaaliyadda South Africa markii ugu horeysay mar walba oo wadanka wax ka dhacaan u taagan yihiin har iyo habeen mar walba haddii abaar dhacdo haddii colaad dhacdo haddii muxuu ahaay culays yimaadaan sidaan ay u yimaadaan waliba naf iyo maal ay isla keenaan waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay ilaahay ajir badan ka siiyo waxa weeye wax kale lacagta macna ma leh waxa macnaha tusinaya waxa weeye walaalnimada
iyo ka warqabka iyo damqashada aad ma santihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu labada maamo ka bilow maamada waa ka bilow way laga qaado bonooyin kala sii qaado bonooyin ka qaado laba qofood ama laba qofood asmaa iyo qof ka raacsan إلهي سبحانه وتعالى dimana aku garai video apa si dimana نادي بركايو ودعية dadkii South Africa soo dhiibay jaaliyada Soomaaliyeed ma soo nabadgelyo ilaahay ku xigtiyo jaaliyadii Koonfur Afrika ee Soomaaliyeed barakayo نادي بركايو قف قريها قف جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى نادي بركايو dadkii muslimiinta ahay soo dhiibay Soomaalida ahay Orso. معلو اسكتر يا معلو بحر نص رجع وائل ها شرف
جزاكم الله خير وما سنتي ذكري هاي dadkii soo dhiibtay oo madalina aad ana kana wanalsi bas waa ka aragnay oo madalina ay kun Allah u kalme tuwada la qab jeedak wax walba meeqa soo dhiib meeqaas boqol warfadis digaamus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما أنت ماشي وحوي هرت هالكام هيران ويا قبل كيران مجال البلد وينا قلبات كذا هو الوذاك وحنا نسوق جارسي وجالية صوماليات غير كفر أفريقيا ينسوق جارسيين لعق بقول دولار ضد كان بيها يقولون ولا رضا يقول دقيقين أنا جرا وحنا لنا هاي إلهي عافمات خير هذين سيو dhibaatada Allah idinka qaado tuugadii cadawga Allah idinka qabto waxa idin booba Allah idinka celiyo culimadiina soo gaarsiisay oo jundugu ku bixisay oo ku dhibaatootina ayadana waa u dacooynayna insha Allah wal kariim ilaahay ma arta iyagan caafimaad khayr qaba hasiyo ilaahay baan ku bariyayna alxamdulillah rabbil caalamiin faatixadana haloo mara assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh khayrka noo keento khayr Allah siiyo culimadii mar labaad nimankii soo darafka oo Soomaaliyeed ilaahay idinkiis cadawga Allah ka qabto ilaahay idinkiis gacantooda wax Allah soo geliyo ilaahay idinkiis ilaahan u baranay waana soo gaartay lacag boqol lahana soo gaartay waa ku mahadsan yihiin walaalahayn waa u mahad celinayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh anigoo leedahay Makka Maxamed waxaan ugu mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeed oo gargaarka siisay inuu ilaahay khayr siiyo oo soo gaarsiisay South Africa iyo wadamaha dheer walaalahayn